بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. فأولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه التحية المباركة waxaan jeclahay in aan idin la wadaago kilibkan oo aan isku dul taagi doono qadiyadda Qudus iyo waxyaabaha ka taagan. ugu horeyn waxaan ku horeyn doonaa maxaa sababay go'aanka Trump ee Qudus loogu aqoonsanayo caasimadda Yuhuudda. maxaa sababay dunidii Carbeed in ay iska dhaqaajin weyda arrintaas. waxa Kuuriyada waqooyi diiday, ay Kanada diiday, Ingiriisku diiday, Faransiis diiday, Jarmal diiday, Shiinuhu diiday, Ruushku diiday in ay dawladaha Carbeed cambaarayn ku ekeeyaan isla markaana wax go'aan ay qaadan waayaan. maxaa kalifay? doorka Turkigu halkee ku wajahan yahay? maxaa ka dhalan karo? waxaasoo dhan ayaan isku dul taagi doonaa. Maraykanka maxaa u bannaan oo option ah? mustaqbalka Falastiinse muxuu noqon doonaa? maxaa Falastiiniyiinta la gudboon? shucuubta Carbeedna maxaa la gudboon? waa mahadsantii. ugu horreyn aan ku horeeyo maxaa kalifay in Maraykanku isagoo dhexdhexaadiye ah uu Qudus u aqoonsado caasimadda Yuhuudda. Maraykanku sida aad la wada socotaan ama qaarkiin uu la socdo, sanadii 1995 ayay golaha Koongareesku waxay u aqoonsadeen magaalada Qudus in ay tahay caasimadda Yuhuudda. intaas wixii ka dambeeyay 22 sano madaxweyne walba uu ku dhiiran waayay jiray, isla markaana sanad kasta ama 6 bilood kasta dib ayaa loo dhigi jiray fulinteeda. madaxweyne Trump oo ah nin majahdiin ah, mas'uulna aan ahayn, غير mas'uul ah, ayaa wuxuu qaaday tallaabo axmaqnimo ah oo dunida oo dhan xitaa Yuhuuddu ay la yaabtay. waxaan rabaa inaan in yar jilciyo maxaa dhiirashada intaa la keenay. waxaa keenay in dunida Carbeed iyadoo ay kala jajabto, dawladaheedii burburaan, uu arkay wax Israa'iil caqabad ku ah mustaqbalka dhow iyo mid ka fog midna inaanay jirin. waxay arkeen Ciraaq oo burburtay, waxay arkeen Suuriya oo burburtay, waxay arkeen Lubnaan oo waxba dhaamin, waxay arkeen Yemen oo burburtay, waxay arkeen Liibiya oo burburtay, waxay arkeen Masar oo shacabkeedii kala shakiyay, madaxweynaheedii la afduubay, military qabsaday, militariguna dawladdii Yuhuudi taageersan yahay. waxaasoo dhan Falastiin oo kala jaban, Gaza iyo Raamalle kala degan, Sacuudigii oo siyaasaddiisii hore isbedeshay, raba inuu Israa'iil u isticmaalo inuu ku maalo Maraykanka, isla markaana aaminay haddii aanu Yuhuudda hoosta soo gashanin inaanu Maraykan xaliif rasmiya u ahaan karin, isagoo Iiraan ka cararayo. waxaasoo dhan maxaa ka dhashay? waxaa ka dhashay guuldarradana ka dhalatay. waxaa ka dhashay in aqdasil muqaddasaat, qibladii koobaad ee dunida muslimka, meeshii nabigeenna loo dheelmay sallallahu alayhi wasallam, xaramkeennii saddexaad, meeshii nabigeenna samada looga qaaday, bayt almaqdis والمسجد الأقصى الأرض المبارك، مقالذي والله سبحانه وتعالى كيري قرآن كيس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إلهي آيات القرآن كأنك صاء وغحر لي بما أنت وحلوه بي بني آدم ككوي أقول نجاسنا. cidda keliya ee maanta wax macna laga rajaynayna waa madaxweynaha sharafta leh, madaxweynaha dunida muslimka, madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan xafidahullah. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan marka aad fiirisid kelmadahan hortayda shaashada ku qoran iyo nooca uu u hadlay, tabari meelay dhigtaba Qudus waa dhuxul aasar. Qudus waa khad cas oo lama taabtaana, waa dal muslim, waa dal Carbeed, waa dal Falastiin, waa dalkii barakaysnaa, dalkii zaytuunka iyo barakada. intaa marka laga yimaado maxaa ka horreeyay waxan? Maraykan muu iska sameeyay hadday xulafo yihiin inuu siisi waco oo Malik Cabdalla uu waco, midka Jordan Malik Salmaan uu waco, intaasoo dhan uu waco.
oo uu keliya khalaas u ogeysiiyo uu dhaho safaaraddan rarayaa ogeysiin waxaas muxulafaa laa wallaahi muxulafa ma ah shucuubta carbeed dubbahan dhalada lagaga hayo madaxda nijaasta ahee dusha laga saaray waa inay iska dulqaadaan dadka muslimiinta ah waa inay u soo duceeyaan masaajidka barakaysan ay niyad khaalisa ilaahay ugu baryaan in ilaahay wasakhda ku habsatay uu ka dulqaado madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan marka laga yimaado khudbadihiisa waxaa u ballansan wiiga soo socoto in uu kulmiyo ururka iskaashiga islaamka ee isagu hadda maanta madaxweynaha u yahay ilaahay ha barakeeye Istanbul buu shirkaasu ka dhacayaa maalinta arbacada weeye dunida muslimka oo dhan baa isugu imanayso intaas wada hadallo wadaa wuxuu la hadlay amiirka Qatar buu la hadlay amiir Tamim bin Hamad buu la hadlay al-Thani wuxuu la hadlay madaxweyne Ruuxaani buu telefoonka kula hadlay wuxuu la hadlay Malik Salman buu la hadlay wuxuu la hadlay boqorka Morocco boqor Mohammed Sadis buu la hadlay intaas wuxuu wada dadaal ah in la soo saaro go'aan dad dunida muslimka ka meteli karo go'aan badbaadin kara Qudus buu rabaa inuu soo saaro ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay isaga guuleeyo dunida muslimka arintan iyada dhaxdeeda ayaa kala jaban iyada dhaxdeeda ayaa la isticmaalaya waxaa jira golofis dunida muslimka maanta loo isticmaalayo waxaa kamid ah wiilkan da'da yar ee la yiraahdo Mohammed bin Salman haddaan in yar idin la wadaago Mohammed bin Salman wuxuu u yeeray ninka la yiraahdo madaxweyne Abbas wuxuu ugu yeeray Riyadh sidoo ugu yeeray ra'iisul wasaarihii Lebanon ee uu yiri iscazile uu xabisay oo kale isna ugu yeeray wuxuu yiri waxaad haystaa 2 bilood oo waqti ah waxaan ka rabaa heshiis baa dhacayo safqatul qarni wax la yiraahdo dhacayo 100 sano wadankan maqnaa hadda waxa dhacay heshiis dhammaan laga tanaasulayo wixii naga maqnaa waligaan dhul aanan helaynin oo xirxinaan mayno Iran inooga faa'iideysan mayso sidaa darteed Qudus iska ilow soo noqoshadii qaxootiga iska ilow dal midaysan oo ay Falastiin leedahay iska ilow waxaas uu ku yiri waxaan rabaa inaad magaalo yar oo caasimada samaysato xogaa yar oo dalahoon hub lahayn oo iska hadii xitaa Masar in yar laga soo goyn karo in laga soo gooyaa laga yaabo oo siinay qayb laga soo daro xogaa yar oo dhulahood adigu leedahay oo aan muqaddasaad lahayn oo aan qaxooti soo noqon lahayn oo magaalooyinka qadiimiga ah lahayn oo wax walba ah Falastiin aan jirin magaceeda aan ku siinaa lagu yiri haddii aad diido haddaad yeesho lacag baa lagu siinayaa fara badan haddii aad diidana xilkana waa laga qaadayaa waana lagu bedelayaa khatar bayna naftaada ku jirtaa buu ku yiri Mahmoud Abbas wuu soo noqday wuxuuna u sheegay ururka Hamas waxaa hadlay ninka la yiraahdo Usama Hamdan oo wakiilka Hamas oo Lebanon jooga waxaa hadlay Sami Abu Zuhri oo Gaza jooga oo Hamas ah waxaa hadlay Abu Rudayna ninka la yiraahdo Fatah oo hadlay dadkaas oo dhan way diideen fikradii ninkaas way diideen wasakha waxaan xasuustaa arintan arin u eeg waxa hadda ka hor sameeyay dalka Turkiga xilliga ay cilmaaniyadu haysatay wasakhda ah waxaa jiri jiray nin la dhigi jiray ra'iisul wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waxaa la dhigi jiray Ismaaciil Jim baa la dhigi jiray 1999 ayuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda wuxuu u yimid madaxweyne Yaasir Arafat Allah yarhamhu wuxuuna u yimid magaalada Gaza oo xilligaas airport lahayd airport ka soo degay wuxuu la kulmay madaxweyne ninka la yiraahdo Arafat madaxweyne Arafat kaliya baan ku rabaa buu ku yiri marka wuxuu yiri madaxweynuhu anu waxaan u baahnay turjubaan isagoo la ogyahay inuu luuqada sidii aad ugu hadli jiray wuxuu yiri haddana waxaan u baahnay turjubaan nin turjubaan ayuu soo kaxaystay oo uu rabay inuu goobjoog ahaado wuxuu yiri waxaan ka rabaa waxaad u baahan tahay calan waxaad u baahan tahay dawlad waxaad u baahan tahay wax walba aad u baahan tahay waxaan ka rabaa hooy yar oo 4 mitir haduu raba ah oo masaajidka Aqsa ku dhex yaalo oo la yiraahdo waa haykalkii Nabiyullaahi Sulaymaan ayaan u baahnahay haykalkii Nabiyullaahi Sulaymaan 4 mitir baa ahaado intaasaan ka rabaa wuxuu yiri saxiix waan ogolahay laakiin hal shardi baan wataa shardigaygu wuxuu yahay buu yiri waxaad afti kaga qaadaa dalka Turkiga shacabka Turkiga afti kaga qaad masaajidka Aqsa dhaxdiisa haykal yar yahuuda muga dhisnaa hadday iyagu aqbalaan qofka ugu horeeya ee jeex aniga noqonayo wuu xanaaqay fadhigana wuu kaga baxay isku daygan wax hadda soo bilowday ma ah walaalayaal waa wax waligood soo socday waa wax kolba cid loo isticmaalahayay maanta waxa la isticmaalaya Malik Salman maalinka waxa la isticmaalaya Ismaaciil Jim carabtii dalkan lahayd iyo dunida muslimkana waa kuwa buraanburahayo la dhaantaynaya ninka la yiraahdo maxaan ku iraahdaa Trump raggii wax qaban lahaa
oo uu ka mid yahay madaxweynahan hadda hortayda ka muuqda Allah yarxamhu Saddam Hussein oo khudbadan hadda uu jeedinaya ay ka hadlaysa dalkan inaan la ogolayn inay carab lahaato in wadamada khaliijku iyagu ay ismaamulaan oo shidaalkooda iibsadaan oo noocay rabaan u iibsadaan oo ciiday rabaan ka iibsadaan aan la ogolayn khudbadan uu hadda jeedinhayo ee xilligaas hore uu jeediyay madaxweynaha ee Allah u naxariistay madaxweyne Saddam ayay ka muuqataa waxaan rabaa marka dhibaatadan waa dhibaato noocaas ah ruqan nin leh ku fadhiya ma kacday dadku dhahan Soomaalidu tiraahdaa war dadka dunida carbeed inta sidan ay tahay ee andimadan nijaasta ay meesha fadhido guul lama gaarayo haddaynu Twitter wax ku qorno iyo haddaynu Instagram wax ku qorno iyo haddaynu boostiyo fara badan qorno midna waxa ma tarayso waxaan rabnaa in Ilaahay loo baryo Baytul Maqdis in Ilaahay loo baryo in dadkaas lala tadaamuno in taageero loo muujiyo qofkii wax awoodo in uu meeshaas ka qayb qaato ayaan horta soo jeedinayaa waxaan rabaa marka ummadan waa ummad karaamo leh waa ummad muslim ah waa ummad hadda kitaabkeeda u noqoto sharaf gaarayso waa ummad aan ihaanada sinaba u qaadan karin tilaabadan hadda uu qaatay ninka la yiraahdo Trumpna waa tilaabadii Baytul Maqdis iyo Masjidul Aqsa ay ku soo noqon lahaayeen